Diyaar ma u tahay inaad horumariso naftaada iyo noloshaada? هاي 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 يا معان هاي 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 يا معان هاي هاي Dabcan, qof kasta oo nool wuxuu doonayaa isbeddel inuu sameeyo. In badan uma suurta gasho, si kasta oo ay isugu dayaan, sababtoo ah ma aysan raacin waddadii saxda ahayd, ama ma doonayaan wixii ay ku jireen inay ka baxaan si u helaan natiijo kale. Dad badan waxay naftooda u akhriyaan liis dheer oo ah waxyaabo ay rabaan inay sameeyaan, noqdaan ama ay helaan, haddana waxay ku dambeeyaan jahwareer, sababtoo ah waxay rabaan in hal mar si dhaqso ah ay guulo waaweyn u gaaraan. Caado ama dhaqamo yaryar oo qofka si joogto ah maalin kasta u sameeya ayaa ku hoggaamisa guul. Waxaan halkan ka sheegaynaa 15 qodob oo aan kuu soo xulnay. Qodobka koowaad wuxuu leeyahay: tuko salaada subax waqtigeeda. Sidoo kale, marka u horreysa aad hurdada ka toosto u mahadceli Alle oo ku siiyey fursad kale oo nolosha ah. Qodobka labaad wuxuu leeyahay: qor wixii hawl ah oo aad rabto maalintaa inaad qabsato, una kala hormari sida ay u kala mudan yihiin. Qodobka saddexaad wuxuu leeyahay: u soco si kalsooni leh, u dhaqan si deggan, u hadal si tartiib ah oo codkaada la fahmi karo. Qodobka afaraad wuxuu leeyahay: ku salaan salaanta Islaamka qof kasta oo kaa soo horbaxda ama indhihiina isku dhacaan. Qodobka shanaad wuxuu leeyahay: habee oo isku hagaaji hoygaaga. Kala yaacsanaanta waxay keentaa jahwareer iyo qaabdarro. Qodobka lixaad wuxuu leeyahay: cun cunto isu dheelatiran. Muhiimaduna ma aha wax badan, ee waa wax ku siin kara nafaqo, energy iyo caafimaad. Qodobka toddobaad: cab biyo badan maalin kasta. Qodobka siddeedaad: sameey jimicsi joogto ah ugu yaraan 30 daqiiqo maalin kasta. Qodobka sagaalaad: akhri kitaab, maqaal ama daawo wax ku dhiirigeliya waxna kugu saa'idiya. Qodobka tobnaad: ka fogow wax kasta oo negative ah ama dib kuu dhigaya. Qodobka 11aad: baro inaad maya odhan kartid wixii aanad dan kuugu jirin. Horay ayaa loo yidhi, haa badan iyo haye fudud halaag bay horseedaan. Qodobka 12aad: ha niyad jebin naftaada, hana ka yeelin in qofku liido ama hoos kuu dhigo. Qof kasta waa gaar, Alle ayuuna leeyahay xilli kasta ayay noloshiisa isbeddeli kartaa. Qodobka 13aad: hel hurdo kugu filan habeen kasta. 14. sameey ficil naxariis leh, xushmeey dadka, xaqdhawrna deriskaaga. Qodobka 15aad ee ugu dambeeya: carabkaaga bar oo ku celceli digriga Alle, dembi dhaaf weydiiso, ku shukri, raac wixii uu ku faray, kana joog wixii lagaa reebay. Mana jirto gool si dhaqso ah hal mar loo gaaro. Wax kasta waxay u baahan yihiin dadaal dheer, shaqo adag, dulqaad, horay u socosho, iyo si joogto ah u sameey ficillo yaryar iyo dhaqamo wanaagsan.